ardada dhigata fasalka BBA Eberlix ee jaamacadda Simed oo kamid ah jaamacadaha Soomaaliyeed ee ka jira wadanka ayaa waxa ay qabanqaabiyeen kulan ballaaran oo looga hadlayay soo noolaynta iyo horumarinta afka hooyo kaasi oo lagu qabtay xarunta jaamacadda qaybteeda kiiloomitir 4 iyadoo kulan cilmiyeedkaasi ay ka soo qayb galeen agaasimaha guud ee wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda Soomaaliya abwaaniin iyo marti sharaf kale kulankaasi ayaa waxa hadaladii laga soo jeediyay ay u badnaayeen kuwa dhiiri gelinaya in bulshada Soomaaliyeed ay horumariyaan afka hooyo oo dhawaanahanba u muuqday mid marka ka dambaysa si lumaya waxaana xarumaha waxbarashada dalka iyo warbaahintaba loogu soo jeediyay kulanka inay bilow u noqdaan dadaalkaasi waxaan ugu dhaliyay barnaamijkan markaan aragnay in afkii hooyo oo god ku sii dhacayo in dadkii ay ay ka sii guurayaan afaf qalaad wax lagu baranayo sidaas la ajligeed ayaan isdhahnay maadaama aatiin ardaydii wax baranaysay wadanka duxaad ku ahayd imaad ka qayb gashaan barnaamijkan lagu raadinayo afka hooyo iyo wanaaga sidii loo bari lahaa dadka in afka hooyo wax ku wada bartaan barnaamijkan in badan waa soo wadnay muddo 3 bilood barnaamijkan uu noo soo dawajiitamayay waxaan nagu dhaliyay barnaamijkan inaan sameeyno in uu siilumayo afka Soomaaliya luqadiisa ما شاء الله الحمد لله ما أنتم حنا نهر قال برنامج كنا إنه نوقف صوم قنتي جنانت كينا رسلتي برنامج كصاب حنا إن أمانة هرتينا كشجنا أغار كميدا أبوانينتا Soomaaliyeed ee ka qayb galay kulankaasi looga hadlayay horumarinta iyo soo noolaynta afka hooyo oo ay kamid ahaayeen Abwaan Saciid Maxamed Xarawo iyo Abwaan Xirsi Dhuux Maxamed ayaa waxa ay sheegeen in afka Soomaaligu uu qatar ku jiro loona baahan yahay in ummadda Soomaaliyeed ay u istaagaan dib u soo noolayntiisa iyagoo warbaahintana ugu baaqay in ay hormuud u noqdaan ololahaasi أقول هذا أسد يا أبجيني شمياء أولي أعطني هوائي ومياء إسواتي مثل أسطمانيو أسأل أقول يومي إن أنا هيبوك هرمي تهدي أقول أعطني تهدي agaasimaha guud ee wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda Soomaaliya mudane Ismaaciil Yuusuf Cusmaan oo gabagabada kulan cilmiyeedkaasi ka hadlay ayaa waxa uu marka hore u mahad celiyay ardada jaamacadda Simed ee isku hawshay barnaamijkan waxaana uu xusay in wasaaradda ay qaadanayso doorkeeda oo ay barnaamijyo looga hadlayo horumarinta afka hooyo ay qabanayso maanta ifadhiisay jaamacadda Simed barnaamijka isoo qaadanaysa aad loo baahnaa muddo badan ku fikiray barnaamijkan oo kale anaga sameeyno laakiin jaamacadda Simed maanta nagu hormartay aad loo baahnaa afka Soomaaliya maalmahan waxaan aan wasaaradda ka wadnay wax kamid ah oo waaxda hidaha iyo dhaqanka uu agaasimo waaxda sanaca fikriga la socda inaan ka sameeyno qayb yiraahdo qaybta wacyigelinta Soomaaliya Axmed Cali Kaahiye TV-ga qaranka Muqdisho